بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رياض تراب ومسكينكي الله خادونك نولها صوردا ماشي إذن كم موقضة برنامج كهالكاسي كسابسين ياهي وسيرك كوباد رئيس الوزراء حمزة أو آدلو لقين ياهي iyo qolyo reer kuumada kaba weyne oo Kenya jooga oo difaacaya ra'iisul wasaaraha iyagana mawduuca waan ku soo daraynaa xisaabtan Soomaali aanu kala xaq qaadayo inta ra'iisul wasaaraha soo martay iyadana xisaabtu ay ku jirtaa soo dhawaada Real Travel waxaan ku horeeyo odayaal dhaqameedka reer kuumade ka soo hadlay gaaraysa haddii nimankaasi ay yihiin niman jamhuuriyadda xorta ah ee Soomaaliya xaq bay u leeyihiin anaa ku daraya tusaale iyo canaan kale haddii nimankaasi ay yihiin reer gaaraysa yacni Soomaalida Kenya NFD oo absamo yihiin xaal iyo xumayn ayaan siin Soomaali daarood harti majeerteen محمود سليمان marka anigu labada waan israacin anigu odayaasha hadlay ee reer kuumade kulay waxaan u badin inay yihiin NFD marka waxaan leeyahay xaal iyo xumayn anigoo khaaduunka noolaha anigoo u kala xaqada Soomaalida anigoo reerka kuumade ka soo jeeda xaal iyo xumayn ayaan ka bixin iyagoo جمهورية كبحثنا جمهورية حرطة إنها ساء حضلان قبيل كيبا قاضي عذر كنحن إنه جرا قاضي هير داروضو رالي كأهادا هير هرتيو رالي كأهادا هير مجرثينو رالي كأهادا أوكي انت أسوا أبولوجايسكي ان هدينا أهين أي صومالي دي حرطة هيديهين حتى ان جيجيجا daaroodku markuu isku qabto jamhuuriyadda xorta ah ama Soomaali isku qabto idinku u dhaxeeya Soomaali galbeed NFDA idinka luuqadiinu ha ahaato mid caafimaadka qabta ee diblomaasiyanimada ah leeyna waad ka baxsantihiin xuquuqda okay ilmaha reeyal bahasha qurxiga Soomaalinimada waynu jecelnahay yeynaan gadaal ka xumaanin dabcan uu nigu jiraa kuwa badan oo doqoma oo dib inoo keenaya kuwa badan oo basaasiina kuwa badan oo baasaboorka iibsanaya sumada iibsanaya waa inagu badan tahay laakiin Kenya fiican baa badan Soomaali galbeeday NFDA daarood hadduu isku haysto jamhuuriyadda idinku daaroodka la jira hadday Soomaali isku haysato idinku hawiyaha la jira ساسا شرفت الصومالي عافيماتك الصومالي كجرتا انت ما كنت يا ريكومه ان ابرجاس كينوان بخي اريوا خادونك نولها وخدميها بيئه افينك جامعه عقارن قم ينتري ريكومه ان هذا وان قرنقسن ان فكرتهم كما جانته ما قدرت انا خادونك نولها ونكس حقيسه ان سيه ان جعلها waxaan leeyahay reer daaroodow ka daaya reer kumada gadarada reerkan Soomaalinimada waa number 1 Soomaalinimada yaani inay number 1 yihiin saaka ayaan ka sheekeeyay imika aan ku celin meel Soomaali ku dhan tahay ay ku faraxsan tahay waa xira kumade waan ku celin saaka aan ka hadlay jigjiga waa xira kumade waxa ku dhan 32 qabiil oo Soomaali ah oo unu kaale aaminna la oranay meesha kaliya Soomaali soo raacdana waa Jubbaland soddon iyo siyaada ku nool war meelaha kale maxay u noolaan waayeen meel ay ku nooshahay inta jijo Hargeysa ma ku nooshahay Burco ma ku nooshahay okay Boosaaso ma ku nooshahay Muqdisho oo caasimadii ama ku nooshahay inta qabiilka Ismaaciil ku nool waa ku celin sidaak saakayni horta meesha kuumada degan yahay uun maxay Soomaali isku tagtaa ilmaha reerkani way madax macaan yihiin way fiican yihiin Soomaalinimada ilmaha
وحالي ولالك أو ملبا هالمر لما ليفو وعن كتر يا دول كان ما أنت الله يسكوها يستدل بانتي راشي قصة يسكوها يستان يا إسكالها أوريجينال أوكي جراد كيساكا أن ورايستي وكشكيي إنay xukuumadda ka soo guureen okay ma jeertay waxay deganayeen Boosaaso area oo kaliya hartii kalaba deganaa toljacayl darteed ayay xukuumadda uga soo guureen bari burca iyaga deganaa maxaan ku rahaa sool iyo sanaag iyaga deganaa okay nimankan boqortooyadan daarood dabeecad xumo darteed ay kala kulmeen sida taariikhdu noo sheegayso garaadka ka dhimanayeen markii jaha loo raaca la waayay boqortooyada damaaceeda absame wuu shiray kumada wuu shiray wuxuu go'aansaday inuu ka guuro meesha okay garaadku waa ka sheekeynayay waxa la sii maray berbera waxa la sii maray maxaan ku dhahaa Hargeysa Boorame halkaas ayaa jijiyo korkeeda ayaa sahankii ina cidood heesahan la qaaday Saara Ahmed halka wakii ka soo warramay ma idin ku celinaysa halka soo dhageyso tol jacayl darteed bay u sameeyeen Soomaali jacayl darteed bay u sameeyeen okay haddaba heer dhan oo ka guuray dhulka ay lahaayeen Soomaali carwa kaas soo sheega aan reerkan ahayn Cabdullaahi soo dhawow reerka kaliya ee Soomaali jacayl daarood jacayl kabla jacayl dhulkoodii uga guuray uga tanaasulay oo xaq beesha cilada adagay waa reer kumade kamaydan harine haddana maanta reeshe qisaha dhulka ay NFD ku leeyihiin Soomaali galbeed wuxuu ahaa dhul kumade oo ku faraxsan yihiin in dhulka ay ka guureen reeshe qisaha degan yahay ma jeerteen degan yahay harti degan yahay waxa kale oo farxad noo ah farxad ii ah wadulkii aan u guuray een qabtay inay Soomaali kulli timaado ila degto waa farxad kale ninka Cali Waraabe la yiraaho ayaa hadda ka hor ka sheekeeyay hal taako oo dhul isaaq leeyahay oo daarood qaabtaday ma jiro anagu ma qabsana kamaana jawaab barigaas maanta ka jawaabaya Cali Waraabe waa runtii hal boos yar oo isaaq leeyahay oo nin daaroodii taariikhda qabsada ma jiro ama absama ha ahaado ama harti ahaado isaaq baa wax qabsanaya laakiin sidoo u dhigay ma aha geesinimo iyo sharaf adeerow Soomaalinimada ayaa reerkan deeqda dhulku hadduu iga bato inuu ninka reesha qisaaqintu yimaado uu ila dago waan ku faraxsanahay dhulkii aan ka guuray inaanan harti kaliya oo aan la kaba lahay ana uga iman oo reesha qisaqaytiis ballaariyay ay degeen sool iyo sanaag iyo maxaan ku dhahaa burco yaano berbere iyo yaro Hargeysa intaasu reesha qisaq deganaa taariikhda jijiyada Allah okay aad baan ugu faraxsanahay dhulkii aan lahaa in harti iyo isaaq wada degan yahay waan ku faraxsanahay waan soo dhaweey reserve area inuu reesha qisaq qabsaday waan ku faraxsanahay hadda Cali Waraabe waxa gaarsiisaan message ka soo ku soconin Cali Waraabe Cali Ruwaayo inta aad sheegtay oo dhan waa run haddaba inaad yeerowma inaad ku faraxdo oo ku dabaaldegto oo tolka ku jeclaato xaq badan buu absaba kugu leeyahay reesha qisaq ku leeyahay harti ku leeyahay ma in la gartay ahayd mise in caana booro oo lagu caayo oo kursiga ma gayaan ayay ahayd haddii uunan qoys Soomaali ah intay reer kumada sameeyeen Soomaali ay u sameeyeen ilmaada reer ila wadaaga qoys Soomaali ah oo u sameeyay inta ma jira qoys Soomaali oo dhulkii uu lahaa Soomaali siiyay ma jira okay xagan kale idana Kenya wata maanta waa la wada degan yahay idana wax lagu farxamiya haddaba haddaad deyn weydaan Soomaaliya heerkani waa qaxooti وعانا بوري وليبا nimankii aan tolka ahayna daarood deyn waayo oo ra'iisul wasaaraha saddex ra'iisul wasaare ayuu mareexaan soo qabtay iyo la madaxweyne intaba waan ku faraxsanayn reer kumada way la shaqeeyeen siday odayaashu sheegeen okay ma jeerteen afar ra'iisul wasaare ma soo maray iyo madaxweyne waan la shaqeynay
hadda waxaan la xisaabtamayaa kaliya daarood mar haddii 3 ama 4 iyo 4 ra'iisul wasaare daarood soo maray iyo mid dhulbahanta ah oo nin absama nin kuumado oo dib laga sheegay uuna jirin oo kulli la shaqeeyay waraway sharaftii iyo xishoodkii daaroodo ra'iisul wasaarahan magaca aad u bixinaysaan caydan faraha badan ka daaya xaq uguma lihidin majeerteenow daaroodow ninka la yidhaha axmed tuke xaq baa loogu leeyahay in la caayo la eriyo la karbaasho lagu duulo okay ma ka daaya duulitaanka okay axmed madoobe wuu istaahilaa waxa laga sheegayo waa siyaasi Soomaaliyeed meesha ku raagay siyaad barra sidii loo eriyay in loo eriyo in ilay sidii loo eriyay in loo eriyo ba xaq Soomaali walaal ma difaacayo Axmed Tuke Axmed Madoobe ma difaacayo haddii Soomaali wax ka sheegto oo daarad wax ka sheego oo majeerta wax ka sheego oo mareexan wax ka sheego ma difaacayo waa bari ducaynaya waan la eriyaya waan la caayaya laakiin ra'iisul wasaarahan marka la aflagaadeen marka wax laga sheegi aad baan u danqadaa aad baan u dhibsadaa daarodow ka daaya ra'iisul wasaaraha cayda majeerteenow harfiyow ka daaya ra'iisul wasaarahan caydan faraha badan isu gudbinaysaa majeerteenow ka daaya ra'iisul wasaaraha dhulkaasa siyaasiyiintiinu ha ka daayaan okay shacab dabcan dad badan oo tolka ayaa taageersan laakiin inta xun inta caayaysa aflagaadeen baa badan haddaad aamusto waad la qabtaa waa inaan baaha bulshada ku arkaa daarood badan oo difaacaya ra'iisul wasaaraha waa inaan harti badan oo ra'iisul wasaaraha difaacaya aan ku arkaa bulshada midiyaha waa inaan majeerteen ku arkaa waa inaan maxamuud Salmaan ku arkaa haddaad aamustaan dabcan dee way qasban yihiin marka kuumada hadduu joogo NFD hadduu joogo jigjiga inuu soo galo adduunka inuu soo galo difaaco way ku qasban yihiin odayaasha waxa ka shanqariyay waxa weeyaan waa dhib ay dareemayaan iyo gadarro ay dareemayaan in afar ra'iisul wasaare majeerteen soo qaato oo 4 majeerteen marraxan soo qaato oo halkii ugu horeeyay hawiyana raali ka yahay idinkuna aad halku taagantiin marxuun maxaa ka dhigay ninkii caawin lahaa ee iskarab taagi lahaa markuu mucaarad ku noqday dabcan marxuun waa noqonaya baralaata uu noqonaya inuu ninka xasan sheekh allaha sharfay ee keensaday inuu u noqdo yes man adeero waan ogolnahay horaan jaamacadda cagaaran u sheegay sanadkan ra'iisul wasaaraha xasan sheekh la shaqeynaya waa inuu yes man ahaado maslaxadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay wixii ka khaldan haddaynaan u sixin oo aan isgarab taagin dabcan uu noqonayaa nin xun codsiga jaamacadda cagaaran waxaan leeyahay hartiyow majeerteenow maxamuud Salmaanow ka daaya magacan xun ee ra'iisul wasaaraha iyo caydan aflagaadadan ka daaya haddii aad ka dayn weydaan waxaan idin sheegayaa jaanis furmaya okay dabcan reer kuumadaha wada xanaaqsan ee jooga NFD ee jooga Ethiopia way soo galayaan marka waxaad u furteen albaabada warsiin albaabada ugu furmin oo inay u difaaceen qabiil ilaa waxa u diiday qabiil Soomaali waan danqanayna haddaad ka dayn weydaan wixii adigu inaad qabato ahayd majeerteenow ama daaroodow in aad ku casuuntaan booskan reer kuumada mar hore ayuu nin hawiye gartay xasan sheekh gartay lashadu waa gaar laakiin ninka noo gartay baa naakiin xiga marka siyaasad la yiraaho ninka abgaal baa naakiin xiga daaroodow hartiyow majeerteenow uu noo ogolaaday ninkaasaan difaacayna ninkaasaan isgarab taagaynaa ninkaasaan yasma u noqonaynaa in uu hoggaan haddaad ka dayn weydaan halkan waxaa furmaya jaanis siyaad barre sidii aanu difaacnay sidii siyaad barre absan u difaacay maxaa xasan sheekh u diiday in uu 100,000 oo hawiya intii la qoro 100,000 oo absama intii la qoro in gebigiinaba la idin qabsado oo la idin taliyo oo ku jirtaan maxaan ku raacaa daarood dambaba nin matalaya oo absama ahayn maxaa diidaya haddii aad dayn weydaan ibdarrada haddaad dayn weydaan aflagaadada iyo quurus la'aanta maxaa diidaya
نينك أبسمه إنه قاشان بورلا نقده هوية أوكي وبلا هي وكبعدنا سفي عن ذي قبصنا أو أضياء شيء يعني أنا قبضتين ملك ثلاث كسمين إن الهوية عن قاشان بورلا أو يدور قاشان بورلا هاي أون لا شيء أو كينيا عن دقنا هاي أو إثيوبيا محل ديدية إن خرارك عطوسان يفعل حماده عطوسان محل ديدية نيك كومدين وكتوسو كداية هلك هجيننا هدا ديدان إذيك إذين درنتهاي إن دجال بايدن كسرعة ولا تاجر سنة هاي إن لما كان ليها البحانته سي أن عادي هاي بحق نقول يهين أوكي يضع ماشى كسرعة طبعا لما كان رئيس هو تركي ولا لهن قلدن يدور بدن بامان تديدن وكسر جدا لكن إذن كود دجال إذن كسرعة أو أباهن إسكربتاج سومال النمو يدارو النمو إن هذا رئيس الوزراء وحسن الشيخ كان صدي ظروف تاساك نكتي أوكي إن هذا عيدان مالين كستا وعب وقول در أسوينيسا صومالي أسوينيسا دارود حساب تنبأ منايا وضياشا كومده كبعدين قبل وأوفر ميا وضياشا صومالي قبل وأوفر ميا أوكي كم حريو أريد الله سعانود وكمبلسري وواجب لكن إن المجرتين كده فايلو واجب ما إن المجرتين لقيس إدراف ما هو واجب أوكي نين طول ما أنت حلقة فوق الدمية لكن أنت لاس عناد وكمبلسري سلوته هاي كمبلسري أيو رئيس الوزراء إنه كمبلسري ويا هاي إن كدقتان ديسان عاوسان هذين عاونين كدا يدبك أنت أصلاً صوغ لي أبولوجيسي نوان بحي waxaan leeyahay dhibka garxajis iyo reesha qasacayana Allah kala qaboojiyo waxaan leeyahay Muuse Biixi Muusow wax ku haray ma jiro garxajis waa bilaabay Gadabuursi waa bilaabaya Ciise waa bilaabaya oo Gabayo waa bilaabayaan marka meesha maxaa ku yaala intaynan halka gaarin ma ka socon inta ma ku daayaa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh